deeqdan lacagta oo qadarkeegu dhan yahay $1,500 ayaa waxaa soo dirtay hablaha muxsiniinta ee ka soo jeeda gobolka Awdal ee ku nool dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Manchester iyagoo ugu talagalay inay ku caawiyaan dhakhtarka dhamarka ee magaalada Boorama oo muddooyinkii u dambeysay xaaladiisa laga deerinayay. deeqdan lacagta ay waxa weyn ka soo wakiishadeen Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar iyo maamulka dhakhtarka gobolka Awdal ee Boorama lacagtan $1,500 oo ay soo direen haweenka ay walaaliheen gobolka Awdal ka soo jeedeen degan Manchester kadib markii ay baaq direen Xasan Rabiic Sheekh Cabdiraxmaan iyo Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte oo ay talab ugu dalbayaan dadkooda walaalahooda inay soo caawiyaan ayay hablahaasi soo ajiibeen. imikana waxaan ku wareejinaynaa hadduu ilaahay isagoo sheekhu iyo wakiishaabo Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar lacag dhan $1,500 maamulka dhakhtarka. sidoo kale Foosiye Xuseen Hodoon oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa dhakhtarka Boorama oo iyadna halkaasi ka hadashay waxay si weyn uga mahad celisay cid walba oo deeqdan lacagta kaalin mug leh ka geysatay. waxaan halkan kala wareegnay lacag dhan $1,500 ay soo direen haweenka Manchester ee gobolka Awdal waxaan noo keenay Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar runtii aad buu mahadsan yihiin walaalahayaga aad baan ugu mahadnaqaynaa كل باهي ولو يفربدين وحن لا هي جزاء الله خير إلى هاي الدمار غنيت بيسان كمال خير بها هندي كريو باهي ولو يفربدن تاي دائما كأ وحن في عنا هذي المرة أركتها مسؤولي بابا بدو ميبة مسؤولي بابا بدو ميبة مركا كل باهي ولو يفربدن